xarunta goomaha tabantaab ee burco ay ku jiraan in ka badan 350 hablood oo goomays isla markaana ay gacanta ku hayso ururka haweenka gobolka Togdheer ee Tawa ayaa maanta la gudeysiyay deeq raashin oo isugu jirta bariis, saliid, caano, baasto iyo timir taasoo ugu soo deeqeen ururka samafalka wadaniga ah ee Masno waxaana maanta deeqdan goojoog ka ahaa mas'uuliyiinta ururka Tawa iyo waalidka dhashay ubadkani agoomaha oo iyaga lagu wareejinayay deeqdan raashinka ah gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Togdheer ee Tawa Marguur Faadimo Muuse Cumar oo halkaasi ka hadashay ayaa sheegtay in deeqdani raashinka ahi ay tahay mid ka soo gaadhay ururka Masno waxaana ay tilmaantay inay mahadnaq ballaaran u soo jeedinayso cid walba oo hawshani isku hawshay sidii ay dhalinyaradan ku jira xarunta agoomaha ee gacanta ku hayso ururkani soo gaarsiisay deeqdani macaawimadan taasoo ay naga soo gaadhay ururka markaasi Masno inay soo gaarsiiyeen deeqda annaguna aan ku wareejin doono waalidkii dhalay carruurta oo markaasi ay u qaadi doonaan wixii carruurta ay heleen annaguna aan nahay ururka Tawa ee gacanta ku haya carruurtan agoonta deeqdaasi waxay isugu jirtaa bariis, baasto, timir, saliid, caano aad iyo aad si gaar uga mahad celinaya ciddii isku hawshay ee nagu soo wareejisay alaabtan soona gaarsiisay hablahaasi agoomaha ah iyo ciddii hawsha lahayd qabanqaabadeeda hore ee siday ee markaas yaani keentayba aad iyo aad baan uga mahad celinaya dhinaca kalena markii deeqdani lagu wareejiyay waalidiinta dhashay ubadkani ayaa halkaasi waxaa hadal ka soo jeediyay qaar ka tirsan waalidiinta ubadka agoomaha dhashay kuwaasoo sheegay inay mahad ballaaran u soo jeedinayaan ururka haweenka gobolka Togdheer ee Tawa iyo cid kasta oo gacan ka geysatay deeqdani ubadkani maanta la gudoonsiiyay deeqdani ayaa tira ahaan dhan 350 hablood oo agooma ah kuwaasoo wax ku barta xarunta tabantaab oo ay gacanta ku hayso ururka haweenka gobolka Togdheer ee Tawa oo iyagu xil weyn iska saaray sidii ay ubadkani waxbarasho loogu fidin lahaa Cabsaaq Faarax Abdilaahi Cabsaaq Nakruma